waa maxay dilaaga ugu weyn ee waqtigan casriga ah ee aynu ku noolnahay muuqaalkan insha Allah waxaan rabaa inaan kugula wadaago dilaaga ugu weyn ee nolosheenna yani hadda khatarta ugu badan ku haya waqtigan casriga ah aynu joogno arintan ma ahan runtii arrin kaftana waana ogaan doontaa insha Allah balse intaan ugu gudbin faahfaahinta waxaan arkaa in dadka ugu badan oo daawada muuqaaladeena aysan nagu xirnayn sida daraadeed waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la gareysid fadlan bogana aad follow ku dhufatid hadda YouTube ka daawadaysid aad subscribe ku dhufatid aad ayaad u mahadsantahay waxa markii is weydiinaysaa dilaagaas waa maxay ugu weyn nolosheena qarnigan 21aad ee aanu ku noolnahay dilaaga marka runtii markaan ku sheego wax laga yaabaa inaad igu qosashido aad dhahdid waxa macquul ma marka dilaagaas runtii ugu weyn oo waqtiga hadda maartay aynu joogno waa taleefanka adiga aweetada smartphone-ka loo yaqaano ama beer salaaxa waa dilaaga ugu weyn ee nolosheena waqtiga hadda ay joogno markaan soo ka hadlayno yani dilaagu yani caafimaadna waxbay noqon kartaa noloshana waxbay noqon kartaa waxaan ka hadlaynaa marka hadda waa nolosha يعني runtii caafimaadkana uu soo galayayo isaga laftirkiisa baa caafimaadka soo galaya waana arki doontaa qaab ahaan dilaagan marka ama mobilku wuxuu uu burburiyaa yani maskaxdaada ayuu burburinayaa wuxuuna runtii u burburinayaa yani si rasmi ah arrintan marka ma aha wax anigu aan keenay laakiin dhakhaatiirta mental health-ka ka shaqeeya maaragtay arrimaha caafimaadka yani maskaxda iyo wixii la mid ah ka shaqeeya iyo daraasado ay sameeyeen ayaa lagu ogaaday inuu yahay waxaan dilaa oo qofka yani dhib badan uu kaysanaya mobilku oo stress ugu mid yahay cudurrada maaragtay depressionska qofku inuu hurdo la'aan ku dhacdo in maaragtay qofka laga focus ku dhacdo noloshii kale maaragtay qofku inuu xitaa maaragtay wuxuu rabay iyo wuxuu rabin xitaa inuu qofka kala garan waayo yani mobilka dhibaato aad badan qofku uu keensadaa haduusan qofku ka taxadirin marka mobilka u baahanahay yani ma isticmaali karnaa haa way su'aashu waa jawaabteedu yani jawaabta su'aasheedu waa haa laakiin xigmadu waxa weeye mobilka waxa la rabaa qaab controlled ah inaynu isticmaalo marka intaadan marka ila doodin oo dad badan waxay dhihi doonaan macquul ma arrintan laakiin waxa rabaa inaan kuu sheego yani adiga noloshaada dhan waxa laga yaabaa kala bar kamid ah in taleefankaas uu ka qaato dadka waliba dhalinyarada dadka xogaa dadka waaweyn waa laga yaabaa percentage yar inuu ka qaato 10%, 20%, 20%. marka tusaale fudud baan ku siinayaa waxaad samaysaa waxaa jira waxda software la yiraahdo yani screen time ka soo fur mobilkaada yani halka sare mobilkaada search-ga wax ku qortaa screen time marka ku qortid waxaad arkaysaa saacada ay ku qaadatay inaad waxda mobilkaada daawatid يعني dadka intooda badan mobilkooda wax ganacsi business oo ma shaqeeyo haduu mobilkaada business kaaga shaqeeyo businesskaada iyo shaqadaada iyo hawshaada awoodatay waa arrin kale laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxa laga yaabaa adigu in arday tahay iskuul dhigta ama jaamacad dhigta ama macallin tahay ama quraan meel ka dhigtid ama yani macad meel ka aadid ama shaqo caadi ah subaxdii aadid ama wax la mid ah qabatid yani laakiin shaqadaada weyn ama arrimahaada weyn ma aha mobil laakiin mobilkii oo aan ahayn shaqadaadii rasmiga ah hadii ka waran maalintii ka qaata 6 saacadood 7 saacadood ama wax la mid ah dadka qaybtoodna way ka baran average-ka marka dadka meelaha ilaa 5 saac ilaa 6 saac ay mobilku yani ka qaataa inay screen time-ka waliba ku jiraan oo kan la isticmaalo aad kale loo isticmaalo marka waad arki doontaa screen time-ka marka aragtid waxaad aad u arki doontaa waqtiga aad ku bixisid yani taleefankaada average-ka iyo sidoo kale ay arki doontaa iyo aabka ugu badan ee waqtigaada aad ku bixisid baa arki doontaa marka xigmadu waxa weeye waa isaga baahanaa taleefanka isticmaalno mar wax fiirin oo loo baahan laakiin waxa rabaa inaysan noloshaadii oo dhan aysan kala bar mobile aad fiirinayso oo wax shaqo iyo hawl hatta cashar ka dhiganaysa hatta wax ka dhiganaysa hatta wax ka diyaarinaysa hatta ka shaqaysanaysa wax la fahmi karo waa wax macnihiin shaqo kale bay noqon kartaa laakiin adoo waxba qabanayn hawl dhan lahayn hadaa 8 saacadood ku jirtid maalintii ka waran noloshaada cimrigaada half kamida ayaa mobilkaasu ka qaadanaya wax productivity ana noloshaada kuma soo kordhinayo oo yani wax soo saar dhan noloshaada kuma soo kordhinayo yani at the end of the day sanadkan kala barbaraya inaad soo isticmaashay mobilkaada half kamida noloshaada inaad soo isticmaalaysay yani ama sanadka bar kamida inaad ku qaadatay telefoon isticmaal barkaas maxay ku soo kordhisay noloshaada yani ma dhaqaalaha ka samaysay horumar baa ka samaysay ma khayr baa shaqaysatay yani maxaad qabatay xagee macduuni aakhira xagee kugu xisaabsan tahay 8 hours ka ama 7 hours ka aad telefoonkaada isticmaalaysay marka haday sameeyaan kugu xisaabsanayn waxaad la joogaan waqtigii aad dib isu sixir lahayd
oo arrintaa aad dib u eegi lahayd iskana yarayn lahayd maaragtay mobilka waxaa jira waxyaabo mobilka kaa caawin kara oo yani timer oo kale jira oo maaragtay taleefanku isdhabiyo oo kale mararka qaybtood waxyaabo noocaasa jira oo controllinga qayb ka noqda adiguna si manual way isu controli kartaayo inaad yani saacadaha qaybtood taleefanka aadan fiirin saacadaha qaybtoodna aad maaragtay aad waxoogaa mar iyo laba fiirisid ama time u samaysid taleefanka inta kalena noloshaada caadiga iyo wixii waaweynaa oo noloshaada aad qaban lahayd aad qabatid haddii kale oo taleefankaadu 6 hours per day kaa qaato naa wixii aad qaban lahayd uu waaweynaayo nolosha dhan meeshay ka baxayaan ilaa noloshaadu adu laba qof matid hal qof ayaa tahay marka haddaad 6 hours xaa ku bixisid uu banaana 5 saac shaqo aadid dee kala barba xaggan garanaysaa kala barba xaggan kaa aadaya ama wax u dhow marka insha allah waxaan rajaynayaa inaynu maxaa la yidhahdaa halka ay si fiican isula fahanay dee noloshaada wax ku mashquulinaya waqti oo dhan kaa qaadanaya dee waxna aan ku tarayn dee waa dilaaga ugu weyn oo waqtiga waxa aan la heli karin la soo celin karin dib u noqon karin weeye marka waqtigaada inaad maartay sida ugu fiican uga faa'iidaysid baad u baahan tahay waxaan rajaynayaa casharkaas inuu informative ku ahaa waxaan rajaynayaa muuqaalkaas inuu informative ku ahaa waa jilaal abyad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu